maalin maalmaha ka mid ah boqor ayaa u yeedhay 3 sheekh oo ka mid ahaa culimadii ugu waaweyneed waddankiisa waxaanu weydiiyey isagoo gacan yarihiisu weheliyo waxa ay diintu ka qabteen doorashooyinka lagu shubto kadibna sheekhii koobaad ayaa hadlay waxaanu sheegay inay bannaan tahay haddii loo baahdo halka sheekhii labaad uu yidhi way bannaan tahay si aynu uga hortagno in waddanka uu qabsado nin xuni sheekhii saddexaad ayaa hadlay isna oo yidhi ku shubashada doorashooyinku waa xaaraan dulmi iyo fasaad mana bannaana boqorkii ayaa ka kacay kursigiisii waana la wada istaagay markaasuu boqorku ku yidhi gacan yarihiisii qor go'aamada aan kuu yeedhin doono waxaanu magacawnay sheekha koobaad qaadiga ugu sarreeya waddanka waayo waa beenaale waan is ogyahay inuu beenaale yahay noociisana waa loo baahan yahay sidoo kale sheekha labaad waxaanu magacaabaynaa imaamka masjid jaamaca ugu weyn waddanka waayo waa tuug waan is ogyahay inuu tuug yahay noociisana sidoo kale waa loo baahan yahay sheekha saddexaadna waxaynu kala laabanaynaa ogolaanshaha khadiibnimada waayo run ayuu sheegayaa waan is ogyahay inuu run sheegayo noocaana looma baahna kadibna waxa uu boqorkii weydiiyey gacan yarihiisii adiguna sideed u aragtaa inaynu doorashooyinka ku shubanno gacan yarihii ayaa ku jawaabay isagoo codka hoos u dhigaya anoo kale miya wax idiin sheegi kara mudane kadibna waxa qoslay boqorkii markaasuu yidhi adigu waxaad tahay mudanahaygiioo munaafiq noocaagana aad ayaannu u jecelnahay